wiilka si lama filaan ah ayuu u bixiis u bedelay laakiin halkii dadka laga cabsi gelin lahaa dhammaan way qosleen markaasay labada gabdhood gacmahoodii baalo ka baxeen oo waxay isu bedeleen qoolay duushay dhammaan ardayda iskuulkan waxay lahaayeen awood ay xoolo isu bedelaan qaar waxay isu bedeli jireen xayawaan xoog leh sida yeyda halka kuwa kalena ay noqdeen bakayle ama deero xitaa macalinkoodu wuxuu isu bedeli karaa gorgor weyn markii wiil cusub uu ku biiray iskuulka qof walba wuxuu rabay inuu arko xayawaanka uu noqon doono si lama filaan ah timo dhumuc leh ayaa kasoo baxay gacmihiisa wuxuuna isu bedelay shabeel buur qof walba waa ama kaagay si loo tijaabiyo xoogiisa macalinku wuxuu ka codsaday inuu la dagaalamo gabar isu bedeli karta orso dadka badankoodu waxay u maleeyeen in orsadu khasaarin doonto sababtoo ah inkastoo ay weynayd oo xoog lahayd ma aysan dhaqsanayn sida shabeelka buurta laakiin dhowr wareeg kadib wiilkii weli ma uusan awoodin inuu ka adkaado markuu arkay tabartiisa macalinku wuxuu go'aansaday inuu tababaro maalin kasta wiilku wuxuu u bixi jiray keynta si uu u tababarto wuxuu isu bedeli jiray shabeel buur ah oo wuxuu la ordi jiray macalinka ilaa geeska keynta dhinaca kale ee keynta waxaa deganaa dadka biniaadamka ah meel aysan tegi karin haddii biniaadamku arkaan way ugaarsan karaan maalin maalmaha ka mid ah isagoo nasanaya diyaaradii yarayd drone ayaa dul martay ugaarsadayaashii waxay si degdeg ah usii daayeen eeyahooda wiilkii wuxuu dareemay khatar markaas ayuu bilaabay inuu ordo laakiin dabadeed ayuu gartay inuusan u baahnayn inuu ordo wuxuu si fudud isu bedeli karayay biniaadam mar kasta oo ninka uu isku dayo inuu biyo cabo isla markiiba waxaa lagu tuuraa saxaraha biyihiina afkiisa ku jira waxay isu bedelaan ciid wuu daalay haddana wuu lugeeyey ilaa uu mar kale ka soo gaaray webigii markan gacmihiisa ayuu ku shubtay biyo balse isla marka uu cabitaanka isku dayey mar kale saxaraha ayaa lagu tuuray markii saddexaad markuu webigii gaaray xitaa ma istaagin wuxuu sii waday socodka ilaa uu jid gaaray nasiib wanaag nin baabuur wata ayaa arkay oo qaaday wuxuuna ugu dambayn gaaray gurigiisii markuu arkay biyo ka daadanaya tuubada wuu adkaysan waayey wuxuu isku shubay galaas biyo baraf leh wuxuuna si dheer ugu fiirsaday aad ayuu u rabay inuu cabo balse wuu ka cabsaday in mar kale saxaraha lagu sidaas darteed far ayuu biyaha ku dhex dhigay hal dhibic ayuu afka gashaday si yaab leh waxba ma dhicin wuxuu u maleeyey in sixirkii laga qaaday sidaas darteed si degdeg ah ayuu biyihii oo dhan u cabay weli waxba ma dhicin wuxuu ku farxay guriga ayuu ka baxay wuxuuna ku booday barkada dabaasha laakiin ilbidhiqsiyo gudahood mar kale wuxuu ku jiray saxaraha markuu si mucjiso ah ugu soo laabtay magaalada wuxuu si lama filaan ah u xasuustay in arrintu ay bilaabatay markii nin faqiir ah uu weydiistay biyo isaguna uu diiday markaas ayuu arkay haweeney ay wadata wuxuu ka codsaday inay siiso hal cabitaan biyo ah balse iyaduna way diiday si lamid ah ninkii wuu qoslay isagoo og in habaarihii hadda iyada u gudbay nin baa subaxdii soo toosay isagoo yaaban markuu arkay gacmihiisa oo laga soo baxay cidiyaha wolferine wuu isku dayey inuu iska gooyo balse intuu dhaqaaqay ayuu laambad ku jebiyey markuu isku taabtay ayuu isdhaawacay cidiyuhuna aad bay u fiiqanayeen wuxuu rabay inuu qolka ka baxo balse halkii uu albaabka furi lahaa ayuu cidiyihii ku muday oo dalooliyey wuxuu soo qaatay miinshaar si uu u jaro laakiin intuu isku dayey ayuu miinshaarkii goy markuu dib u xasuustay ayuu ogaaday in isaga iyo saaxiibkiis habeen hore iftiin sir ah ku dhacay subaxdii dambe saaxiibkiisna wuxuu arkay indhihiisa oo soo daadinaya rayska laysarka sidii Superman wuxuu isku dayay inuu gashado muraayado indhaha daboolaya balse taasi waxba kama tarin saaxiibkii markuu isku dayay inuu quraac samaysto isagoo indhihiisa xiran wuxuu si qalad ah u cunay lego halkii uu cunto ka cuni lahaa ugu dambayn labada nin waxay fadhiisteen oo ka wada hadleen awoodahooda cusub waxay garteen inay si fiican u isticmaali karaan saaxiibkii laysarka leh wuxuu helay muraayado khaas ah si uu xakamaynta u helo ninkii cidiyaha lahaa isna wuxuu ku bilaabay inuu salad gooyo isagoo calows ku jaraya khudaarta saaxiibkiis laysarka lehna wuxuu hilibka digaaga ku karin jiray indhihiisa ninkii calows lahaa xitaa wuxuu go'aansaday inuu gadka ku xiirto cidiyihiisa isagoo leh maxaa diidaya anigaa wolferine cusub ah gabadhan waxaa lagu dhex riday baaldi buuxo malab ah iyadoo tuuba oksijiin lagu xidhay kadibna waxaa lagu qaaday qol buuxa oo bensiinku ka buuxo dadkaasi ma samaynayn si ay u dilaan balse si ay u badbaadiyaan markii aabbaheed dejiyey haweenaydii ayaa ku tiri neefso oo ha sii daynin inta ugu dheer ee aad awooddo markaasay tuubadii oksijiinta ka saartay waxaana la shiday qolkaas dabka ayaa markiiba qabsaday heerkulkuna si degdeg ah ayuu u kacay gabadhii waxay bilowday inay dareento kulayl daran finan kululna way ka soo baxeen maqaarkeeda laakiin taasi waxay ahayd bilowgii keliya waqti kadib malabkii ku jiray baaldiga ayaa adkaaday gabadhina way istaagtay dhaqdhaqaaq la'aan markay arkeen in aysan sii adkaysan karin haweenaydii ayaa si degdeg ah u jartay oksijiintii qolka ku jirtay dabkii markiiba wuu baktiyey maadaama oksijiin la waayey markii dabkii la damiyey oksijiintii ayaa dib loo shiday waxaana abuurmay meel si buuxda nadiif u ah oo aan bakteeriyo ku jirin waxay sidaas u sameeyeen sababtoo ah difaaca jirka gabadha uu burburay waxayna ku noolaan kartay oo keliya meel si buuxda u nadiif ah markaas ayay haweenaydii ku tiri ka soo bax si lama filaan ah gabadhii way istaagtay finan kastana way ka baxeen jirkeeda maqaarkeediina wuu bogsaday gebi ahaan wiilkan Puntlandarka ah ayaa maalin walba iskuulka ku xiran jiray koofiyad madaxa lagu ilaashado si uu wejigiisa quruxda badan u qariyo hase yeeshee markay macalimadu fasalka soo gashay ayay ka yaabtay wiilka oo koofiyad xiran waxay ku adkaysatay inuu isla markiiba iska bixiyo haddii kale ay dugsiga ka eri doonto wiilkii uu uga digay inay taasi tahay fikrad xun balse markii la hanjabay ayuu si khasab ah koofiyadda uga saaray madaxa isla markiiba wejigiisii quruxda badnaa ayaa soo baxay macalimadiina dhiig sanka uga qubanayay oo neefsashadii ka xumaatay iyadoo ka suuxday waxaana lagu qaaday isbitaalka maalintii xigtay saaxiibkii ayaa u qaaday iskuul gabdho ah si loogu tijaabiyo
wejigiisa quruxda. gabdhihii iskuulkaas waxay aad uga taxadareen wiilal fool xun oo iskuulka soo gala, markaasay qaylinayeen iyagoo ku amraya inuu iska bixiyo koofiyadda. laakiin markuu wiilkii koofiyadda iska bixiyey, iskuulkii oo dhan buuq iyo jahawareer ayaa galay. gabdho suuxay, kuwa ooyey, kuwa dhiig sanka ka qubanayay, qaarna sidii ay jini ku dhacay ayay u boodboodayeen. warka dhacdadaas ayaa si degdeg ah dalka oo dhan ugu faafay, waxaana baraha bulshada lagu baahiyey muuqaal gabdhaha xaalad xun ku dhacay. wiilka ayaa hal mar caan ka noqday, laakiin arrintu taas kuma ekaan. kumanaan gabdho ah ayaa isugu soo baxay gurigiisa iyagoo ku wareegay. qoyska wiilka ayaa dhib kala kulmay sidii ay uga eryi lahaayeen. ugu dambayntiina waxay bilaabeen inay lacag ku qaadaan gabdhaha doonaya in lagu daawado ama guriga wiilka booqdo. boqorku wuxuu ku tuuray ninka haan biyo karkaraya ah. markay aragtay arrintaas, amiiraddu isla markiiba waxay ku riday sidkeedii sixirka ahaa biyaha, waxaana isla markiiba ninkii ka duulay haanta, balse wuxuu ku dhacay haan labaad oo buuxay biyo baraf ah. halkaas ayuu isla markiiba ku qaboobay, balse daqiiqad gudahood shimbirtiisii boynix ayaa ku riday hal baal oo gubanaya, taasoo sababtay in ninkii mar kale ka boodo haanta. laakiin haantii ugu dambaysay waxay ahayd caano kulul. markuu ku dhacay, dhaqaaq dambe lagama arag. qof walba wuxuu u maleeyey in la shiilay, amiiradduna ilmada kama celin karin. lama filaan ah, ubax dandeliyon ah ayaa ku dhacay haanta, waxaana ninkii si tartiib ah uga soo kacay iftiin sixir ahna hareeyey. waxaa la ogaaday in ubaxaas dandeliyon uu yahay geed badbaadinaya oo dameerkii uu lahaa ninkaas uu ka soo qaaday dhulkii ugu fogaa. geedkuma ahayn oo keliya inuu ninkii badbaadiyo, balse wuxuu ka dhigay mid ka sii qurux badan. boqorkii markuu arkay isbeddelkan, wuxuu rumaystay in saddexda haan ee sixirka ahi ay sabab u ahaayeen. sidaas darteed, si uu u noqdo mid dhalinyaro ah, isaga ku booday haanta. laakiin maadaama uusan lahayn sidkii sixirka, waxaa hareeyey xumbo weyn oo cirka la aaday. sababtoo ah ninku wuu ka badbaaday saddexda haan, dadku waxay doorteen isaga inuu noqdo boqorka cusub. gacanta gabadha ayaa si lama filaan ah dab uga kacay. way argagaxday, biyo ayayna ku bakhtisay. laakiin markaas ayay qososhay, sababtoo ah gacantaasi been bay ahayd si ay saaxiibteed ugu qiyaamayso. ka hor inta saaxiibteed uusan xitaa falcelin, sanka gabadhu dhiig ayuu ka bilaabay, wayna ku margaday sidii neef ay leedahay. saaxiibteed baa argagaxay, balse mar kale ayay gabadhu qososhay. waxaa la ogaaday in ketub keliya uu ahaa. saaxiibteed ma rabin inay la hadasho mar dambe. laakiin intay gabadhu qoslayso ayay si lama filaan ah u bilowday inay si xoog ah u gariirto, afkeedana xumbo ka soo baxayso. markuu saaxiibteed mar kale ka welwelsaday, waxa ay noqotay khiyaano kale oo gabadha ka socota. xitaa way iskaadiday si ay run u eg u noqoto, kadibna waxay u baxday qolka fadhiga. laakiin si lama filaan ah, tiigii ayaa iskiis u shidmay. waxay u malaysay in saaxiibteed isna isku dayayo inuu ka aargoosto, laakiin biyo ayaa shaashada ka soo burqaday. makhluuq cabsi lehna wuxuu ka soo baxay gudaha. gabadhu qaylo dhaan bay ku dhawaaqday, balse saaxiibteed mar dambe ma rumaysnayn. sidaas darteed, gabadhu waa inay keligeed la dagaalantaa makhluuqa. inkasta oo ay geesinimo muujisay, ugu dambayntii way dhimatay. wiilkan yar ayaa kor u eegay, wuxuuna arkay in dhammaan jawaabaha xisaabta adag ee ku qornaa sabuuradda si iskiis ah maskaxdiisa ugu soo dhacayaan. wuxuu aad ugu farxay oo si degdeg ah ayuu ugu qoray imtixaankiisa. nooca xisaab kasta oo uu eego, jawaabta ayaa si sixir ah maskaxdiisa uga soo boodaysay. laakiin natiijadii imtixaanka markay timid, macalinka wuxuu u maleeyey inuu khiyaamay, sababtoo ah horay weligiis kama uusan helin wax ka badan darajo. taasi keliya ma ahayn, maalin kale isagoo daawanaya ciyaar kubadda cagta ah, si lama filaan ah ayuu arkay goob yar oo ifaysa oo hoos uga muuqata lugta ciyaaryahan. wuxuu xitaa arkayay xagasha kubadda loo tuurayo. dhammaan ciyaartu waxay u beddeshay xisaab weyn oo maskaxdiisa ka socota. awoodda cusub awgeed, wuxuu go'aansaday inuu kooxda ku biiro. tababaraha ayaa hal fursad oo keliya siiyey si uu isku muujiyo, balse ciyaartoyda kale ma aysan rumaysnayn. markii ciyaarta la bilaabay, haddana way usoo tuureen kubadda. isla marka uu qabtay, maskaxdiisu waxay bilowday xisaab degdeg ah oo cajiib ah. wuxuu arkay saaxiibkiis oo bannaan u socda si uu kubadda u qabto. wuxuu xisaabiyey xawaaraha cadowga, wuxuu hagaajiyey xagasha kubadda, wuxuuna si kalsooni leh u tuuray, iyadoo qof walba ama kaagsan yahay. kubaddii si sax ah ayay gacanta ugu dhacday saaxiibkiis. qofna ma aamini karin. tababaruhuna wuxuu ku yidhi, wax kasta oo waalida ah ee aad hadda samaysay, waxaad kasbatay kursi kooxda. markii gabadhu ay hoos u eegtay cagaha, waxay garwaaqsatay in caws duurjoog ah si dhaqso ah uga baxayo agagaarkeeda. laakiin halkii ay ka baqi lahayd, waxay sii waday inay la ciyaarto walaalaheed, iyadoo go'aansatay inay ka faa'iidaysato fursadda boqoradnimada. ciyaarta oo socota mid mid ayaa gabdhihii kala daalay oo istaagay, laakiin iyadu taalidkeeda xoog bay u sii yeelatay. iyadoo ay ka buuxdo go'aan gubanaya, waxay sii waday ciyaarta ilaa ay ugu dambayntii gaadhay sideedda tartame ee ugu dambeeya. waxay fiirisay saaxiibkeed iyada oo rajaynaysa inuu u qoslo ama u sacabiyo, laakiin niyad jab weyn bay la kulantay. indhihiisu xitaa iyada kuma jeedin. halkii wuxuu si qoto dheer u fiirinayay gabar kale. laabteedu waxay dareentay sidii in la kala jaray, balse way diiday inay isdhiibto. si kasta ha ahaatee, waxay go'aansatay inay sii ciyaarto, sababtoo ah waxay doonaysay taajkaas. ugu dambayntii, markay muusikadu istaagtay, magaceeda ayaa la dhawaaqay. iyadii ayaa loo magacaabay boqoradii cusub ee tuulada. dadkii farxad ayaa la qarxay, waxayna qoorteeda ku xireen qoordhaan ubaxyo midab leh. farxadda darteed neeftuurkeedu wuu dardaray. in yar kadib, odaygii tuulada ayaa gacanteeda saaray torjes ololaya. iyadoo si adag u haysata, waxay gashay gaari una dhaqaaqday dhanka keynta. laakiin markii ay dib ugu soo noqotay xafladii allabaryada, runta naxdinta leh ayaa caddaatay. saaxiibkeed wuxuu ahaa mid iyada khiyaamayay muddo dhan. wiilkan ardayga ah wuxuu imtixaanka ula yimid qaab cajiib ah oo uu ku qishayo, isagoo warqado yaryar ku qarsaday kabahiisa hoostooda.
macalinka ayaa ka shakiyey laakiin markii uu u tegey oo uu baaray waxba kama uusan helin. dhanka kale arday kale ayaa warqadihii qishka ku qarsaday far macmal ah oo uu gacanta ku xirtay. markii macalinku u yimid maba uusan dareemin in wiilku uu lahaa 6 farood halkii uu ka lahaan lahaa 5. fasalka waxaa sidoo kale ku jirtay gabar iyaduna warqada ku qarsatay xirada timaheeda. halkaas macalinkii wuxuu si buuxda uga shakiyey in ardayda oo dhan ay wax qishayaan laakiin wuu awoodi waayey inuu midkoodna gacanta ku soo dhigo. waxaase jiray arday kale oo adeegsanayay farsamadii ugu yaabka badnayd uguna casrisanayd. wuxuu qalinkiisa ku xiray qalab farsamo oo u saamaxayay saaxiibkiis oo gaari bannaanka fadhiyey inuu arko su'aalaha oo dhan. marka uu saaxiibkiis gacanta dhaqaajiyo ardayga imtixaanka ku jira ayaa isna si la mid ah gacantiisu u dhaqaaqaysay wuxuuna qorayay jawaabaha saxda ah si lama filaan ah. saaxiibkii bannaanka joogay waxaa dhibay duqsi. markii uu isku dayay inuu iska eriyo duqsiga gacantiisu waxay bilowday inay si aan la xakamayn karin u dhaqaaqdo. tani waxay sababtay in ardaygii imtixaanka ku jiray isna gacantiisu si qasab ah u dhaqaaqdo wuxuuna si qalad ah qalinkiisii ku muday macalinkii kale ee agtiisa taagnaa taasoo u keentay inuu galo dhibaato weyn. naagtan waxay leedahay gacan dahab ka samaysan. maalin maalmaha ka mid ah iyadoo geed ka goynaysa keynta waxaa ku soo dumay geedkii oo ku habsaday. ninkeedu wuxuu aad isugu dayay inuu geedka ka qaado laakiin wuu awoodi waayey. sidaas darteed si uu nafteeda u badbaadiyo wuxuu go'aansaday inuu gacanteeda faas ku gooyo. dhacdadaas kadib waxay mar walba dareemi jirtay murugo markay aragto gacanteeda go'an. markuu arkay xaaladeeda ninkeedu wuxuu u naqshadeeyey gacan macmal ah laakiin iyadu waxay rabtay in gacantaas laga sameeyo dahab. sidaa awgeed maalmo kadib wuxuu u sameeyey gacan dahabi ah laakiin gacantan dahabka ah darteed jidhkeeda waxaa galay caabuq infection. maalmo yar kadibna way dhimatay. intaysan dhiman waxay ballan uga qaaday ninkeeda in meydkeeda lagu aaso iyadoo wadata gacanteeda dahabka ah. isna sidii buu yeelay. sannado kadib wuxuu noqday nin sabool ah wuxuuna u baahday lacag uu ku noolaado. sidaas darteed wuxuu aaday qabrigii xaaskiisa wuxuuna bilaabay inuu qodo. markii uu soo bixiyey gacantii dahabka ahayd ayaa xaaskiisii oo meyd ah indhihii kala qaaday laakiin wuu iska indha tiray oo wuxuu gacantii la aaday gurigiisii. habeenkaas xaaskiisii ayaa u timid si ay u soo ceshato gacanteedii dahabka ahayd. isagoo cabsanaya ayuu gacantii dib ugu celiyey laakiin isla markii ay gacanteedii qaadatay way dishay. folowda hanaga hilmaamin.